هذا أوتو وايفرايا adiga wala faray hadda aniga haddaan iraahdo nabadii nolol waa ka soo qayb galaya ifur way furaya marka hadde waa guri in leeyahay moogta markuu rabo albaabka ka furayo marna albaabka ka xiranayo Soomaa wada hadalladii ugu heerka sareeyay waxay ka dhaceen Addis Ababa waxa soo baxay warar badan oo ku saabsan wixii Addis Ababa ka dhacay dhaxmaray adiga iyo Musabbix Cabdi oo markaa ahaa madaxweynaha Soomaaliland rasaaraha Ethiopia ay wada dhex joogay Abiy Ahmed runtii uu ka shaqeeyay xilligaasi dhabna way ka ahayd in aan Soomaaliya ay midowdo waqooyi koonfur inay midowdo waa aqbalay si toos uu aqbalay abina waan dhageysanaya waa aqbalay way yiri hawshaas waa qaatay laakiin waxaan ka rabaa adigana daltirka taxsoon waa meesha dhacdadii ugu weyneed ee ugu horeysay ka dhacday arintaasi waxa runtii siyaabo fara badan looga hadlaa maxaa ka dhacay daltirka taxsoon oo sax marka ya arintan falkiyay ya bomboniyay oo arintan qaabka u dhigay arintan waxa xaqiiqatan bomboniyay Xasan Sheekh baa bomboniyay qaybtan waxaan rabaa inaan laba arrimood oo waaweyn oo arrimihii gudaha iyo arrimihii bulshada dawladda waxyaalo badan baa la yiraahdaa waa loo qabtay waxa ama way qabatay ama waxyaalaha qaarkood waa ka gaabisay la dhahaa waxaan rabaa arrimihii gudaha waddanka dhibaatooyin badan baa taagnaa arrimaha dagaalada sokeeye dib u heshiisiinada siyaasadda gudaha oo kharbudneed arrimaha doorashada waxaan ku siinayaa kansho aad ku sharaxdo arrimihii gudaha waxyaalihii la taaban karayay waa horena waa adiga uba sheego yiri waxaan ku hadlay waa run ma aha wax ama la kaca ama runtii aan run ahayn ma aha waa adiga yiri bal waxaad ii sheegtaa maadaama wax badan dadka Soomaaliyeed ka sugayeen waxyaalihii arrimaha gudaha ee xasuusta leh ee aad maanta ku taaban kartid ma ku faani kartid ee aad qabatay horta arrimaha bulshada soo taabatay ama arrimaha gudaha galeysaaye runtii annaga waagaasi waxaan ka dhaxalnay Xasan Sheekh Maxamuud dal colaad ku jira qabiil salaamaya ma jirin qabiiladu dhan waa haysteen meel walba dagaal ka socday hubka dawladana lagu dagaalamay oo loo qaybinayay dadweynaha suuqa ka gataan meel kasta ka helaan dawladdu si kala ha u bixiso dadku waxay ku dagaalamayeen oo meel walba yaalay dagaal sokeeye oo aan loo baahnayn dawladduna weligeed xil iskama saarin annagu markaan nimid markiiba waxay noo ahayd priority inaan heshiis dhab ah dadka Soomaaliyeed aan dhex dhigno dib u heshiisiin u sameeyno koo waxa ka ahaa galkacyo kale oo weligeed kala xirnayd intaas oo sanad walbana dagaal ka dhacayo oo intaas oo dad waalaha ay ku hoobanayeen labada dhinacba arintaas markaan nimid xoogan saarnay waa ka shaqeynay labada dhinac isku keenay ciidan xasilina u sameynay odayaashii dhaqanka mushahara u bilawnay odayaashii dhaqanka joogay mushahara u bilawnay oo aan ku niri haddii dagaal dhaco waa mushaharka waa goosanayna waxaad ka shaqeynaysaa labada dhinacba in la isku furnaado dadku aad walaalaysaan dagaal dambana uusan dhicin odayaashii dhaqanka iyagana waajibaadkoodii waa guteen dadkii waalaha ah halkaas joogay waa soo dhaweeyeen ciidanka xasilinta ahna waa fuliyeen wax alla wixii loo baahdo oo enforcement ah hawlgal ah waa fuliyeen oo haddii uu imaan karo isku dhac iyo dhibaato imaan karo inay ka hortagaan halkaasi alxamdulilah wax ka yimid sidaan anigu aan madaxweynaha u noqday ilaa hadda ma maqlo alxamdulilah siyaasoo kale shabeellada hoose dagaalo aan caadi ahayn baa weligeed ka socday dadku waa dagaalamayeen guryahay iska gubayeen dhibaatay isku sameynayeen shabaabkuna of course waa isku dirayeen oo waa ku dhex jireen weli madaxweynihii xasan sheekh markaas joogay
ma dhexgelin mana isku dayin annagu markaan nimid waa dhexgalnay waa walaalaynay waa heshiisiinay haddana ilaa waagaas ilaa haddana sidaasay ay ku wada nool yihiin nabad ku wada nool yihiin ilaahayna nabad ha kusii maaragtay ha u ziyaadiyo dagaaladu markay dhacayaan marka dadka dhexdooda qaar waxaa laga yaabaa markiiba inay horey ka dhacaan reer miyiga ah maxaa yeelay waxyaabo badan baa ka dhexeeya oo de siday isugu dhow yihiin waana isugu dhow yihiin waana ku kala fog yihiin marka dagaalahaas ka dhacaya dagaalada markay dhacaan oo markiiba waxaan u diraynaa wafdi taga meeshaas oo dadka kala dhexgala oo soo heshiisiiya xitaa mararka qaarkood magtaan kala siinayni idinku aad bixinaysa ha mag yaan siinayni si dagaal dambe uusan meeshaas uga dhicin magaan bixinayni caabudaaqoo kale saasoo kale ahayd magaalo hal reer degan yahay oo kala qaybsan 4 qaybood u kala qaybsan oo 7 sano 8 sano aysan isu gelin aan la isu imaan aan la kala ganacsan ma garatay oo colaadu taalo iyagana formalihii meeshii ahayd kalkacayo baad marisee yaan marinay odayaal yaan u sameynay maxaan ku raahdaa guurto ah mushaharna u qornay ma garatay waan ku nir hadduu dagaal dambe iyo magaaladan qallaase ka timaado iyo haddii la isdhexgeli waayo waa la ka jaranaya mushaharka iyagana dee waa qabseen shaqadoodii ilaa markii meel fiican ay soo gaartay dee markaas shaqadooday noqotay odayaasha guurtada ah ilaa haddana saasay ku wada joogaan qabiiladoo dhan oo meel kasta ku dagaalana saasoo yaan ugu dhex jirnay intuus dagaal ka dhicin ka hor yaan ka hor dhici jirnay aan ma aragtay ka qaban jirnay hadda marka maxaa yaala marka hadda meel walba dagaal yaa ka socdaa meel walba dagaal baa ka socdaa qabiiladii waa isku baaba'een dowlad dhex gelaysa ma laha dowladda wafdi u diraysa oo heshiisiinaysa ma laha dowlad mag xitaa ku fakaraysa inay ku bixiyaan iska daa taas waa fog tahayba ma garatay ma jirto marka waxay keentay hadda qabiil walba in hubeeyo qabiil walba wax alla wuxuu heli karo inuu dhaqaaluhu haysto inuu hubgeliyo soo ma garan aawi Soomaaliya heshiis ah aawi visionku waa fiican yahay aragtidiisu waa fiicanta laakiin waa hadal weyn ficil aan ficil lahayn marka meel walba waxaa ka socda dagaal dowlad ku fakaraysa aad ma sheegi kartaa wasiir arrimo gude oo hal meel u baxay oo dhib ka dhacay ma ii sheegi kartaa ma ii sheegi kartaa meel dhib ka dhacay wasaarad iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ka hadlay ma maqash maya ma dhicin marka waxba uma aha hadal waxaas waxa weeye hadal malagiis galay wey Soomaaliya heshiisa maxaa yeelay meeshaas in laga bilaabo heshiiska Soomaalida laga bilaabo dadka reer beelaha wada degan ee walaalaha Soomaaliyeed in laga shaqeeyo nabadooda in laga shaqeeyo marka runtii taasna waa ka gaabisay waxaan kaloo annaga aan ka shaqeynay oo qayb ka ah arrimaha bulshada caafimaadka waxaan keennay oo aan bilownay inaan bixino caafimaad lacag la'aan free ah ها isbitaal banaadir maxaan ku raahdaa martini inaan bilowno in dadku tagaan oo lagu daaweeyo lacag la'aan lagu daaweeyo intii aniga aan joogay ma garatay awal dad baa haystay dadkii waa ka qaadnay kadibna waxaan ka dhignay public oo intaasoo boqolaalo kun oo qof yaa lagu daaweeyey lacag la'aan lagu daaweeyey maalintii aan ka tagnay yaa lagu bilaabay lacag waa taa arkaysa ayaan dhaweyd gabar miskiin oo banaanka horta isbitaalka hortiisa ku foolanaysa oo dadku ay shahaadada u qabanayaan ma garatay arrintaa ma la socotay waa arkaynay soo ma sidee kuu saamaysay marka maxay noo saameyn weyday gabar Soomaaliyeed oo canshuur bixiso oo muwaadin ah oo la fiirsanayo banaanka inay ku dhalayso qof walba fiirsanayo xalxumadaas fiiri waxay noqon kartaa xasan sheekh walaashiis soo ma noqon kartaa eedadiisa noqon kartaa soo marka waxa weeye dowladdu sideedaba waxa weeye waa adeeg dowladdu haddaad maqasho waxay u jirtaa waaba adeegba dadka inay u khidmayso ay cadaalad u samayso ay kala ilaaliso maxaan ku raahdaa ay service siiso way dowladdu
marka taasna runtii wax laga naxay noqotay markii dadkii la yiri lacagahaas ka bixiyo yaa bixin kara lacagaha dad masaakiin oo qutulyoonkii la aba joogay jira dalka jire see ku bixinayaan caafimaad marka de ilaahay bay qabaan waxa ku soo hartay waxbarashada sidaas oo kale 24 iskuul yaan bilownay inaan ka shaqeyno iyo macallimiintoodii inaan free ka dhigno oo 70,000 oo arday ah aan ku bilownay oo qorshuhu wuxuu ahaa haddaan sii joogi lahayn 300,000-400,000 inaan gaarsiino waxbarashada free ah sidaan ku yiri oo kale qasabka iskuuladii aan kusoo kornay annaga aan wax kusoo baranay xasan sheekh naftiisa wax kusoo bartay iskuuladii qasabkay ahaayeen oo laga wado qasabka oo qasabka waxa laga wadaa waxa weeye si boobsiisana waa lagu dhisay oo iska wax u qabso tan labaadna qof walba ku khasbanaa family walba carruurta inay soo diraan oo wax la baro carruurta iskuulka qasabka la oran jiray no child left behind laga tegin mareykanka ha inaan cunugna laga tegin marka taasna weel baad ka gaadhay waa si fiican baad u sharaxday aad u maasan tahay tan arrimaha bulshada waa wax su'aal kaba qabo laakiin waxaan su'aal ka qabaa arrintii dhabu heshiisiinta arrinta dhabu heshiisiinta waxaad ku fidiseen arrintii Soomaaliya marka halkaas ka soo galaysa oo runtii dee waa arrimihii gudaha wadanka waxaa dhacay wada hadallo waana jirin wada hadalladu adiga horta way abuurnaayeen inta badan dalalka dibadda lagu qaban jiray iduguna sida caadada ahayd wada hadalladii ugu heerka sareeyay waxay ka dhaceen Addis Ababa waxaa soo baxay warar badan oo ku saabsan wixii Addis Ababa ka dhacay dhex maray adiga iyo Muuse Biixi Cabdi oo markaa ahaa madaxweyne Somaliland rasaaraha Ethiopia ay wada dhex joogay wadada Addis Ababa dadku waxay yiraahdeen waxay soo gaareen heer aan horey aysan u gaarin wada hadalladu adigana goob joog ahaa dad badanna way ka hadleen siyaabo kala duwan bay uga hadleen heeran waxay soo gaareen in adigu madaxweynaha wareejiso oo aad fiila Soomaaliya ku wareejiso Muuse Biixi Cabdi bal xaqiiqda dhabta ay wada hadalladaas ujeedooyinka laga lahaa iyo inay heer noocaas oo kale isla soo gaareen inaad maanta waxay marayaan si kala diloo dhigo xitaa in Soomaaliland ay tiraahdo de waa baan la aqoonsan dalal ay bilaabaan inay yahay waan aqoonsan adoo bal isbarbardigaan halka ka sameynaya marka horeysa dhab heshiisiintii ma xaqiiq baa inay heer ka gaadhay waa sax su'aal fiican weeye arrintan horta waa arkay dad kala duwan oo ka hadlayay xitaa Muuse Biixi oo arrintan si kooban uga hadlayna waa dhageystay waxa weeye arrintan arrin jirta weeye waa sax Abiy Ahmed runtii uu ka shaqeeyay xilligaasi dhabna way ka ahayd in aan Soomaaliya ay midowdo waqooyi iyo koonfur inay midowdo waxayna ahayd wax soo socday oo anigu isagaan kala hadlay inuu hawshaasi qayb ka noqon karo bacdama Muuse uu tagtay jiray Addis Ababa inta badanna waxaa la iskaga xantaa Ethiopia inay mar walba ka shaqeyso kala fogaanshaha Soomaaliya iyo qaybinta Soomaaliya inay ka shaqeyso oo iyadoo qayb ay ka tahay taariikhna dhex taala historically taariikhna dhex taala maxaa yeelay dal cadawgaaga waxaad jeceshahay inaad kala qaybiso si aad waxa rabto uga fushato marka anagoo iska qabna tuhunkaas iyo shakigaas ninkan cusub Oromo ka yimid Oromaduna dad iska dhiban bay ahaayeen oo qolada xabashida la yiraahdo Tigreega iyo Amxaarada u dhiban muddo dheer u dhibnaa marka ku dhib qabay marka xoogaa dhankaasna waa iska soo galnay oo weli markaas wuxuu la dagaalamayay oo culays ku hayay qoladii Tigreega ahaa arrintan marka ay bilaabatay oo soo dhex galay Muuse waxaan ogaanay inuu magaalada yimid Abiy ay soo wacay wuxuu yiri Muuse yimid aniga xog kama hayn inuu yimid magaalada soo ii sheegay adoo xogteeda ma haysay ma hayn baan yiri wuxuu yiri waxaan rabaa inaan labadin aan idin kulan siiyo ma kulanteen oo ma hadasheen waxaan ku waa fiican tahay in kulan siiyo waa fiican tahay waana kulan siiyay oo saacado badan yaan wada joognay hadalkii waa noo bilowday sidaan u wadnay waxay ku soo gabagabowday in aan isku fahmno
aniga oo raba midnimada oo wax walba diyaar u ah inaan ku bedesho inaan idhaahdo urniyahu haddee soomaaliya o dhan baad haysataaye maxaa adiga haddee berbere iyo boorame iyo maxaan ku idhaahdaa iyo hargeysa iyo dee intaan goboladan aad dadka ka taliso iyo intaad ka taliso iyo kaliya guud ahaan somaliland intay ahayd markaas intaad iska dhaaftid niyo soomaaliya o dhan u imow soomaaliya waa 20 milyan waxaan leenahay deked maxaan oran lahaa xeebta ugu dheer 2 webi waad og tahay dhulkeena waa dhul barwaaqo ah dadkeena waa dad waala ah oo ehel ah ma kala qaybsanno ma kala qaybsami karno cadowgeena naga faa'iideysanaya bal ninkan hadda xabashka ah oo nagu dhex jira oo raba inuu anaga na walaaleeyo oo aan isu imaano bal fiiri ceebta intaas la eg aan caawa maanta dhex fadhina ka war in ninkaan isu kaayo keeno oo isu kaayo soo riixo oo uu doonayo inaan midowno ka war oo weliba afkiisu ka leeyahay caruurtiin u naxa mustaqbalka caruurtiina fiiriya balday ninkaas yaaba caruurteena nooga danqasho badanba marka walaalow waxaa weeye soomaaliya o dhan maamul oo wixii aad sheeganayseen iyo tacadigii iyo grievancegii iyo dhibkaad sheeganayseen adigu qabo soomaaliya oo waa kaasaaye adigu maamul ma garat anigu wax kale ma rabee waxaan rabaa midnimo keligeen ma taagnaan kartaan annagana lug baa naga maqan ma taagnaan karno marka si aan adduunka ula jaan qaadno oo soomaali si ahaan jirtay ay noqoto oo maxaan ku rahdaa ma kala maaranee walaalow na hogaami adigu qaba hawsha waa aqbalay si toos u aqbalay aabina waana dhegeysanaya waa aqbalay waayuhu yiri hawshaas waa qaatay laakiin waxaan kaa rabaa adigana inaad markaad xamar tagto aad cudurdaar samayso si aan dadka usoo dhaweeyo oo dadka xag jirka u fog aan u tuso war dadkii dee waa kaasaayo waa noo cudurdaareene haddee mana kala maarano yacnaa in garowshii laga bixiyo tabashadii dadku qabay mana kala maarano marka adu aabi si adag iyo runtii u hadlay oo de hadda aqoonsiga adiga hadda sheegtoo kale wuxuu yiri Somaliland lama aqoonsanayo waqti un baad iska dhumaynaysaan hadda 30 sano ku socotaan 30 sano hadda maraysaan lama aqoonsanayo Soomaaliya South Sudan baa dhib naga haystaa ilaa hadda aan dhaqaajin la'nahay marka caruurtiina u naxa dadkiina u naxa anigu waxaan u yiri nin idinku walaalaatiin yiri anigu waxaan ahay adeerkiin wuxuu la jeedaa idinku Soomaali baa tihiin oo walaalaatiin ana oromana ahay kushitik yaan islana marka wuxuu yiri qolkaas u tilmaamay meel buu tilmaamay wuxuu qolkaas file baa ka buuxu yiri failkiina wuxuu yaalo yiri qolka prime ministerka si deliberately ah oo cad yaa ula kaca yaa Tigreeg idin kala qaybinayeen laakiin aniga adeerkiin baan ahay walaalkiin ah adeerkiin baan ahay ma rabo wixii Tigreeg ku dhigayeen ama anaga inagu dhigayeen inay soo noqoto marka idin kala qaybin maayo dhibkiina ma rabo inaa walaalo noqotaan oo isu timaadaan oo heshiisaan oo caruurtiin u naxdaan iyo dhowr jir ku celceliyo waxaan ku yiri bal ninkan day xabashka ah waa anaga nawaaninay caruurteena noo sheegay oo nawaaninay marka adoo calaa xaal saasaan sula qaadanay waxaan ku kala tagnay meesha anu meeshan ka aadi lahaa bila Soomaaliya iyo meeshan ku noolaan lahaa yaan ka fikrayay bila Soomaaliya kadib hadda hawshu xilka barkadii hawshu waa dhamaatay ma moogto hawshu waa dhamaatay anu waxaan ka fikrayay markaas saan u banaan lahaa meesha iyo qaabkii hawshu ay u dhici lahayd marka waxaan ku balanay 15 casho ka bacdi inaan nimaano meesha la yiraahdo Hargeysa oo diyaariyo oo ninkan biixi ah oo dadkiisa u tago oo ka soo gado ka soo dhameeyo maxaan ku raahdaa midowga waqooyi iyo koonfur awoodii iyo dowladnimadiina u soo wareegayso maxaan ku raahdaa isaga
marka anigu saasaan meesha uga tegey aan uga tagnay annagoo filayna inaan isu soo noqono kadibna dhankooday ka shaqayn weyday anigu kolley ballantii waa fuliyey oo dee uu yidhi niyahow cudurdaarka samee arrintii dhacday aniga ma ahayn ciddii samaysay isba dowladdaas uu ku jiray moogta oo Saleebaan Gaal baa ku jiray dowladdaas oo Cabdiraxmaan Cirra ku jiray dowladdaas anagoo dhan waa ku wada jirnay marka laakiin aniga markaan meesha fadhiya oo macnaha uu leeyahay adu cudurdaar samee ujeedkuna wuxuu ahaa oo kaliya aan u sameynayay in aan helno Soomaali meesha ay ku jirto oo gudnimada ah inay ka baxdo oo dalkii siduu ahaan jiray uu noqdo adduunkan aan la jaan qaadno arrimaha dhexdeena hoosena aan iska xalisano marka dee shabaabna ma joogi karaan markaas markii dalku u midoobo shabaabna ma joogi karaan cadow kalena laguma dhex jiri karo anu marka visionkaas aragtidaas yaa ii muuqatay maxaa markaa arrin aada lasoola soo dhaweeyey ilaa xadkaa gaadhay oo awoodii la qaybsaday ma dhici kartaa inay dalal kale haddana sidii caadada ahayd ay soo dhex galeen oo arrintan ay kala daadiyeen waa tuu noocaas ma soo galay marna maya ma aqaan taas ma garanayo laakiin kolleyba waxaan qiyaasayaa dhankiisa wax ka wadi waayey dhankiisa wax ka wadi waayey waa tahay wuxuu sheegay dhowr jeer Musabixi inuu yidhi tusaale ahaan waana la cuno qabatay Somaliland dhibaata inoo geysatay Soomaaliya dhibaata inoo geysatay intii adigu aad ku jirtay dowladnimada inta rangareynaysa madaxtinimada haysay ma wax xuquuq oo Somaliland ay lahayd baad soo taagtay maya taas waxay iska propaganda moogtaa local consumption dee dadkiisu u baahan yahay inuu wax u sheego waa inuu cadaawad sameeyo waa inuu cadaawad abuuro marka dee cadaawad Ethiopia ugama abuuri karo Ethiopia waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu ku tiirsanaado Djibouti ugama abuuri karo marka wuxuu gaaray markaa inuu uga abuuro annaga marka dhabu heshiisiintaadii adiga waxay gaarsiisneed badleed inaad kursigaaga banayso ha dabcan waaya aad baan mahadsan tahay waxaan rabnaa mawduuca marka tan aan ku noqdo aad sheegtay oo ah cunaqabateynta macnaha cunaqabateynku wuxuu noqon karaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale haddii tan siyaasadda aniga waxaan u dhaartay dastuurkan ugu dhaartay midnimada Soomaaliya marka haddaan arko iyagoo oo isagoo baxayo oo Conakry aadaya ama Gabon aadaya ama meel kale West Africa aadaya dee inaan la hadlo madaxdaas waa ku khasbanahay kii madaxadkaadana inaan calaaqaadka ka goosto marka cunaqabateynka meesha ka imaanayo waxa weeye mar uu tagay waxaa jirtay meesha la yiraahdo Guinea Conakry oo maxaan ku raahdaa aan ka goosan calaaqaadka marka dee waa xanuun badan tahay ma sahlana moogta wax sahlan ma aha laakiin waa dabiici labo waxaa intaas dheer Kenya kale waa tuu tagay u soo dhaweeyeen sidii inuu madaxweynaha yahay oo kale again waxaan ka goostay calaaqaadka Kenya ma garatay maxaa yeelay Kenya ma rabo inay kala goyso Guinea Conakry ma rabo inay kala goyso waana u dhaartay aniga in dalka aan isku hayo marka taas haday tahay cunaqabateen ay ula jeedaan anigu waxaan ilaalinayay aan difaacayay danaha Soomaaliya aad iyo maasantay madaxweyne waxaan rabnaa mawduuca qaybta ugu dambaysa oo maanta inta waxay ku saabsan tahay doorashooyinka dalka iyo marxaladda maanta dalku marayo waxaan rabaa markaa su'aasha koobaad ee doorashooyinka dalka in horta aad soo khulaasayso oo waqtigan anagoo koobana xaqiiqatan doorashooyin baad ka soo shaqaysay doorashooyinkii dalkaad ka soo shaqaysay intii adigu aad madaxweynaha ahayd oo ballanqaadkaagii horena ay ku jirtay oo ahaa inaad doorasho qof iyo cod waddanka gaarsiinayso ilaa iyo heshiiskii 17 September ilaa iyo doorashadii 22 dhacday ugu dambeyn iyo arrimihii qalalaasay ka dhashay intaas mawduucaas iyo ilaa iyo maanta halkay taagan tahay marna isku xidhno marka ta koobaad nooc doorasho adigu aad raadinaysay Soomaaliya ma ka qabato hadda ka qaban maxad u qabay xaqiiqatan runtii waa isku day wanaagsan ayaan sameynay oo horaan u bilaabnay doorashada sanadkii ugu horeeyay aan tagay meesha waxaan ka bilaabnay doorasho qof iyo cod ah
sanadkii labaad baydhabaan ku saxiixnay qof iyo cod kulli dowlad goboleedyadu ay qeyb ka yihiin oo ay saxiixeen oo ogol yihiin. kadib waa isbedeleen, baarlamaankaan geenay, baarlamaankii markaan geenay waa ansixinay iyadoo dee kulli liswato mucaarad iyo muxaafadba oo laisla ogol yahay doorashada nooceeda iyo waxay tahay. weli waa diidan yihiin dowlad goboleedyada iyagoo shalayna ogolaaday. kadib waxaan ku qasbanaaday si aan dalka u badbaadiyo in wax ay rabaan aan yeelo. maxaa yeelay dalku waa fragile. haddaad tiraahdid laba dowlad goboleed yaan ka tegayaa, dee dal ma haysid soomaaliya la yiraahdo, in ku ogol kaliya haysataa. marka waxaa la rabaa adiga inaad wadato haddaad madaxweyne tahay oo mas-uul tahay, wixii wax ku wata iyo in ku wadata iyo in aan ku wadanba labada inaad isku wadaa la rabaa oo is ogolaysiiso si dalka uusan usii kala fogaan usii burburin. marka waxay iyagu ogolaayeen oo ay rabeen yaan yeelay oo ah doorasho dadban. anu ma rabin doorasho dadban, waxaan aaminsanaa doorasho toos ah in la qaban karo yaan aaminsanaa. doorasho dadban yaan waxaan ku qaatay dalka inaan isku hayo. kadib siday iyagu rabeen waa diideen haddana. oo doorashada dadban doorashadii dadbaneyd waa diideen oo waxay diideen inay soo gudbiyaan guddiyadii doorashada qaban lahaa qaybtay ku lahaayeen iyay diideen inay soo gudbiyaan. waxay diideen doorashadii inay qabtaan iyay diideen iyagoo islahaa farmaajo waxa weeye hala dhaafiyo maxaan ku raahdaa mandate hala dhaafo. laakiin ogow heshiis baan lahayn, heshiis macnaha heshiisaan gaarin sida hadda kale ma aha. hadda xasan sheekh heshiis siyaasadeed ma haysto. anuu heshiis siyaasadeed 6 bilood ka hor iyo 5 bilood ka hor yaan gaarnay oo dee aan arkayno doorashada sida loo qabanayo, cidda qabanaysa, waqtiga lagu qabanayo, jadwalaysan. oo baarlamaanku ansixiyey waqti ka dhamaan. baarlamaanka ansixiyey, baarlamaankana uu ku daray qodob dhahaya baarlamaanka hadda jooga waxaa bedelaya baarlamaanka la doorto oo soo socda iyo hay-adaha dowladda. iyo hay-adaha dowladda. marka macnaheedu waxa weeye waxaa haysataa heshiis sharciyeysan oo haddii maalmo ay dhaafto xitaa dowladdaasi ay tahay dowlad shaqaynaysa oo caalamkuna aqoonsan tahay, dadka Soomaaliyeedna aysan ku wareerin oo aan laga daba qeylinin. kadib markii mucaaradkii iyo dowlad goboleedyo qaarkood ay isqaateen oo ay gaareen go-aan ah farmaajo lalama tartami karo haddii dee uu gaaro February 8 doorashada uu qabto, ilaan doorashadii waa ogol yahay in la qabtee uu guulaysan karaa. markaa aan dagaal gelino, gacmahan dhiigga aan gelino, sumcaddan aan ka hadlayno. see uga hadlaynaa sumcadda? waxaan uga hadlaynaynaa waa anagoo dhaafina February 8. waa yahay aan sameyna marka xaalado aan abuurno. waxaa la yidhaahdo guddiyadii la keenay oo annagu aan keenay maxaan ku raahdaa waxa weye guddiyo bias ah weeye, ma aha guddiyo fair ah, ma aha guddiyo dhexdhexaada, ma aha hala saaro hebel hala saaro, hebel ha laga bixiyo, hebel ha laga bixiyo. ma garat wax alla waxay rabeen waa u yaal. annagoo runtii aan rabnay inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo. iyagu laakiin waxay ka ahayd istaraatiijiya oo delay tactic ah ayay ka ahayd. inay wax daahiyaan ayay ka ahayd oo ah haddii 8 February la gaarsiiyo oo ninkaan la yidhahdo madaxweyne hore waaye, dee aan la dagaalno oo aan dhahno ma aha madaxweyne nooma aha oo dagaal hala geliyo oo xaaladaha lagu abuuro. haddii kale ninkan waa naga guulaysan karaa. marka haddaan qabanaynaa waa isku raaceen qaar dowlad goboleedyada iyo mucaaradka ah. aniga ma ahayn qofkii daahiyey doorashada, aniga maaha. waxa weye waxyaabaha maanta saxa ay ka mid tahay oo muhiimka ay tahay inaan sheego. waxa weye saan sheego dee been fakatay lama gaaro, ma garatay, run ma gaarayso. macnaha waxaa laga dhigay doorashadii aniga inaan diidanaa oo aan ola kac dib u dhigay si aan u joogo xukunka. sax ma ahayn arrintaas. doorashada dib waxaa u dhigay qaar dowlad goboleedyada ka mid ah iyo mucaaradka, iyagoo ka baqayay
inaysan la tartami karin labo iyagoo rabay dalkan dagaal sokeeye inuu ka dhaco oo la yidhaahdo farmaajo waxaas weeye waxaas u sameeyey ma garatay waa sida xasan sheekh haddaan uga baqaayo inay ku dhacdo oo aan runtii dhowr jeer uga digay marka markii waktiga la gaaray maxamed mursal baa sheegay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka way u tageen waxay ku yidhaahdeen maxamed mursal adigu sheego inaad madaxweyne dalka ka tahay annagu waxaan leenahay farmaajo madaxweyne maadaa madaxweynaha haye maxaad doonaysaan maxaa samaynaysan ciidamaan ku keenaynaa waa ku difaacaynaa waa mucaaradka dhahaya waryahay ordayga tawiir waa waalantihiin ninkan sharciyadu ku joogaa sharciyadana baarlamaankaa siiyey doorashadana waa muuqataa doorashada soo gala heshiiskii doorashadana waa diyaar markaa ha marka saa laleeyahay marka heshiisku waa saxiixan yahay oo waa saxiixan yahay heshiiskii waa laisku raacay wax walba waa diyaarsan yihiin idinka weeye waxa diidaya doorashada inay dhacdo u diyaar garooba doorashada ha dhacdo tartama saasuu ku yiri publiclyna wuu u sheegay meel public ah uu ka sheegay arrintaas markii waktigii la dhaafay oo ay bilaabeen derbiga ha looga boodo oo dee islahaayeen dee moogtahay qofku waxbuu istusi karaa moogta ma garat waxay iloobeen anugu dee dowlad inaan madaxweyne ka ahay sharciyad haysto heshiis siyaasadeed oo consensus ah wadar ogol ah ku fadhiyo dowlad ibadasho baa aan ku wareejin karaay anugu cid kale kuma wareejin karo xukunka iyo maamulka qaabkii lagu wareejin lahaana waa 17 September waa September 17 heshiiskeedii kadib waxay ka soo istaageen in doorashada hore loo dhaqaajiyo totally xamar baan ku shirnay April 2021 laba dowlad goboleed baa waxay yiraahdeen adigu haddaad tartamayso doorasho dhici mayso ma dhacayso doorasho oo sicada ma kulama soo galayno doorasho dalkan doorasho kama dhacayso oo hadda xuquuq qof leeyahay weeye idinku maxay tahay maxaad dulanka ugu socotaan teeda kale ma midna nin idinka yeelaya waxaa ka hadlaysaan ma garat warrimayo haddaad tihiin haddaad tartamaysaan soo tartama haddii kalena warka iska dhaaf ma garat kadibna waxaa dhacay qalalaasihii u horreeyay kadibna waxaa dhacay waa isku noqon annagii saddex dowlad goboleed iyo ra-iisul wasaarihii iyo aniga isku tagnay iyo tiimkayga waa la fariisanay waxaan war aad arkaysiin maanta doorasho dalkan inuu ka dhaca ma rabaan mucaaradka doorasho ma rabaan waa April markaas doorasho mucaaradkan inuu ka dhaco ma rabaan labadaas dowlad goboleedna ma rabaane maxaan samaynaa lafta garen baa wuxuu soo jeediyey wuxuu yiri niman yahow annagii baa runtii ka badan inta maqan marka senatarada aan bilaawno shaqadooda ilaan heshiiska waa nala soo galeen waxaan waa lasla ogol yahay kama noqon karaan aan baxno aan qabanno doorashadii aan bilowno oo senataradii aan soo saarno qoorqoor yaa hor istaagay wuxuu yiri ma dhacayso cali guudlaawna waa ku raacay dee waa aragtidooda wey moogta aniga dee taariikh baan ka hadlayaa waa saas qofan ku xumeynaya ma jirto waa saas waa wixii dhacay wey moogta musalsalkii wey waa wixii dhacay wey iyaguna markaa saasay u arkaayeen xalka dantooda saasay u arkaayeen rooblan oo ku raacay marka hadde markii ay intaas soo jeediyeen oo israacday oo ay ku adkaysteen in doorashadii tooska ahayd ee qof iyo codka ahayd lagu celiyo bacdama ay diideen doorashadii dadbanayd si taas loo sameeyna baarlamaanka in lagu celiyo oo baarlamaanka uu dib ugu celiyo doorasho toos ah warkii markaa lafta gareen halkaas ku qayooda halkaas ku istaagay anu xaqiiqatan lafta gareen yaan la qabi ma garatay maxaa yeelay aniga dan baa igu jirtay inay doorashada dhacdo anytime soon anytime inay dhacdo marka laakiin raggeennii weeye haddii ay soo istaageen haddii la-aantood lama samayn karo maxaan ku rahdaa lafta gareen clicks ma samayn karo senataradii inuu soo saaro waxaan ku khasbanaanay marka taladooda inaan qaadano inkastoo de aniga la isaaro dambigeeda iyo eedeeda waana qaadanayaa dee anaa dalka madaxweyne ka ahaa laakiin runtii dee anigu waxaan ku shaqeeyaa team work ma garatay team yaan ku shaqeeyaa
haddii dadkii aniga aan wada isku siyaasadda ahayn oo jaalka ahayn oo saaxiibada ahayn ay soo istaageen oo yiraahdeen annaga ma qabanayno international community-gana lama dagaalamayno madaxweynuhu baarlamaanka ku celi doorashadii tooska ahayd qofkii codka ahayd ha geeyaan xalimyari gacanta laga saaro hawsheeda aqlabiyadii saas noqotay yaa horta baarlamaanka ku keenay doorashadaas saas iyo aniga korkayga ku fuushay oo la yiri farmaajo muddo kororsiga rabay bacdama baarlamaanku ay yiraahdeen doorashadii dad bareed baa lagu noqonayaa waxaan lagu qabanayaa muddo 20 bilood ah saan qiyaasay ama aduu 2 sano wax ka yar ay yiraahdeen yaa lagu qabanayaa yiraahdeen doorashada qiyaasteeda ma xasuusto exactly aduu 2 sano waxay yiraahdeen waxa lagu qabanayaa 2 sano gudahood sax way 2 sano gudahood yaa lagu qabanayaa it could be 1 year bay noqon kartay 6 bilood ma 6 bilood laguma qaban karin sanad kala raaci karay markaas April baa la joogaa ya ama 5 bilood kala raaci karay oo waxay noqon kartay 10 bilood iyo noqon kartay inta yarto waqti adu waxa la yiri muddo 2 sano gudahooda taasaan ku faataxaysanay ku heshiinay hadhowna markii baarlamaanku soo saaro qaraarkaas inay taageeraan oo aysan noqon baarlamaanka kaligiis adnaa saxeexdo anigana aan saxeexo waxaan ku yiri waxay oran doonaan dowlad goboleedyada waa inay taageeraan madaxweyne adna waa inaad saxeexdo oo dekreet ka soo saarto ma qaadanayna haddii saas yiraahdaan waa qaadanayna yiraahdeen baarlamaankii baa hawshii loo dhiibay baarlamaankii saasay qaraarkoodu noqday sharciyadii saasay noqotay sharciga saas ku soo saareen markay ku soo saareen aniga de balantii inaan fuliyo waay iyagii waa ka bixin balantii baarlamaankaasi marka maadaama muddo dhaaf ahaayeen awood ahaan sharci ahaan iyagu heshiiskii September 17 bay ku fadhiyaan iyaga September 17 bay ku fadhiyaan waa sharci oo markaasay lifaaqii waxay doorashooyinkii ku darsadeen in baarlamaan bedelo markii hore ay mandate ka haysteen 5 bilood ka hor waxay ku darsadeen qodob dhahaya baarlamaan la soo doortaa bedelaya hay-adaha dowladana waxa bedelaya hay-adihii la soo doortay marka baarlamaankaasi sharci u haystaa marka baarlamaanka tobnaad kan 11aad wuxuu kaga duwan yahay ilaa adiga soo saaray qaraar marka 14 bishan baarlamaankii dhacay waxaad soo saartay warbixin waxaad baarlamaankii de muddaxleedkiisa dhamaaday marka waxaad leedahay baarlamaankan maanta jooga ma uusan soo saarin qaraar uu ku joogi karo ma haysto heshiisna ma haysto qaraarna ma haysto wuxuu haystaa soo sheegaan dastuur iyagu ay leeyihiin oo hal dhinac ah oo aan heshiis lagu ahayn qaybaha waan ku daray doonaa ku soco marka taadii hore sidaas marka lagu saxeexay aad ku saxeexday marka anigu waan ku qasbanaa inaan saxeexo si aan u fuliyo balantii aan qaaday laakiin iyaga balantii waa ka baxeen waa diideen inay saxeexaan balantii waa ka baxeen ha ka baxaan balantii taas waa siyaasad iyo hawlahaas ay u fahamsan yihiin siyaasadda anu siyaasaddaas uma fahamsanin siyaasadda waxaan fahamsanahay haddii aad ballan gasho fuli ballanta marka horena ha gelin ballanta yaa ku khasbaya adiga ogta kadib markay arrintaas u dhacday waxaan waa taariikh hadda ogow mar labaadan ku celinaya waa taariikh qofay xumeynayso afeefta waa afeef kale qofay xumeynayso iyo qofay dhibayso ma aha waa xaqiiq dhacday oo sax ah siday u dhacdaan u sheegaya oo run ah marka raggii meelay galeen iyo meel ka bixinaan waay ma garat shalay lahaa waa qoorqoor waa cali guudlaawe waa rooble oo ku adkaysanayay in baarlamaanka lagu celiyo bacdamaa laba dowlad goboleed ay diideen in hore loo socdo waxaa bilowday marka hawshii badbaado ay ku sheegeen yaa bilaabatay hawshii badbaadaa bilaabatay badbaadadii markay bilaabatay qaran ciidamadoodii iyo waxoodii kadibna raggii iyaga ahaa oo dee na geliyey in baarlamaanka la geeyo in baarlamaanka qaataan qaraarkaas doorashadii tooska ahayd iyagaa warqad qoray oo dhahaya farmaajo ha ka noqdo ma garatay ragga wax isla ogeydeen waa siyaasadda Soomaaliya ma garatay
siyaasadda Soomaaliya wey marka anyway saasaa dhacday runtii door marka meesha u socdo waxa weeye sax waaye anaa qaadanayo wixii xumaan iyo samaan dowladeedii ay lahayd ma garat anaa qaadanayo laakiin de waxaan hadda u sheegaya waxaan waa qaabka farsamo wax u dhacay in se wax u dhaceen iyo in layla leeyahay ya talada aanu keligay aan lahayn talada layla lahaa yaan u sheegaya macnaha dadka soo ma garan waaye taa badbaadaan haddaba waa ta ugu xiisaha badan arrinta ugu sii xiisaha badan waxaa weeye daljirka dahsoon waa meesha dhacdadii ugu weyneed ee ugu horreysana ka dhacda arrintaasi waxaa runtii siyaabo fara badan baa looga hadlaa maxaa ka dhacay daljirka dahsoon oo sax daljirka dahsoon oo hadda marka beenta ay badato dee run loo qaato oo ah waxaa lasoo weeraray meeshii hoteelkii muxuu ahaa maa'idu oo de qof walba iska hadaaqo de waxay noqotay wax run ah moogta wixii fictionka ahaa baa run loo bedelay yaa run noqday markii waxa lagu celiyo marka dambe run bay noqdaan dagaalka saa sheegtay wuxuu ka dhacay daljirka dahsoon daljirka dahsoon waa xarun dowladeed wey xarun dowladeedna maleeshiya ma qabsan karto oo ma dhihi karto dowlad kama jirto dalka macnaheedu waxa weye dowlad kama jirto oo xarun dowlad la qabsaday dowladdii waa waxa weye dalka ma jiro markaas si aan uga hortagno arrintaas aysan usii shaqaynin usii socon yaa habeenkii aan xalinay arrintaas oo ciidamadii gorgor ay ku baxeen oo ay kala eriyeen ciidamadii meesha qabsaday daljirka dahsoon laakiin wax ka dhacay inaba ha yaraatee meesha madaxweynayaasha ay ku jireen oo hoteelka maayida ahaa ma jirin waxaad leedahay waxba kama dhicin meesha waxaad leedahay meesha hoteelka iyo arrintan isma khusayso maya markay refer garaynayaan dhacdadaas waxay dhahaan waxay ka dhacday hotel maayida hotel maayidana hal xabad kama dhicin ma garat meeshana waxay isu jiraan ilaa 500 mitir jid baana meesha gooyaha oo aan la soo gelin oo baabuur lagu gooyin si aysan halkan ugu soo cararin marka aagooda waaba aaga waxay ku jirtaa madaxtooyada ku jirtaa xeyndaabka fiiri meesha lagu leeyahay maayida xeyndaabka madaxtooyada ku jirtaa ma garatay marka dhankan dagaalka kama dhicin laakiin dee bacdama hawsha la rabo in la qabiileeyo oo la kiciyo dadka shacabka la kiciyo ilaa laba madaxweyne ma sahlana moogta ma garatay oo la leeyahay waa lasoo weeraray hawl sahlan ma aha moogtahay marka in wixii dramatized laga dhigo oo shacabka la kiciyo oo arrintu ay isqabsato oo arrintu intaas ka weynaato way meesha u socdeen waayahay iyo sumcadda dowladda in lagu dilo yaa naftigeeda waayahay adoo waxaa u dhigtay taas inay ahayd howlgal xarun ciidan xarun dowladeed lagaga xorinayay ciidan maleeshiyada oo ayagu sheegtay inay qabsadeen laakiin maadaama aagaas ay ka agdhawaayeen 500 mitir ba ka soo qaad laakiin dee areadii isku xaafadda ma isku degmaha wax xiriir ma la sameysay odayaashii halka joogay madaxweynayaashii oo aagaasi in howlgal ciidan uu ka socon karo dabcan waa lala soo xiriiray waxaa lala soo xiriiray tiimka meesha joogay yaa lala soo xiriiray waxaan ku xaqiijinayaa madaxweyne Sheekh Shariif yani waa ka wada hadalnay waxaan daan ka hadlaa waa xaqiiqo weey isagu naftigiisa markii loo sheegay meesha in xabad ka socon laakiin de qeeladii ay socoto xabadda banaanka u soo baxay soo u hubsado markaasuu wuxuu arkay wiilashiis mid kamid ah oo xabada cirka u gamaaya oo meeshii de ciidan ma jooga meesha lagu dagaalamaba dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo daljirka dahsoon yuu dharbaaxiyey wiilashiisi mid kamid ah waa dharbaaxiyey jooji yiri xabada waryaa meeshan xabad kama socotee waa xaqiiqo arrintaas ma garatay marka yaa arrintan falkiyey yaa bumbuuniyey oo arrintan qaabka u dhigay arrintan waxaa xaqiiqatan bumbuuniyey xasan sheekh xaqiiqatan xasan sheekh baa bumbuuniyey oo ka dhigayay in lasoo weeraray si dee bulshada loo kiciyo dadka loo kiciyo ma garatay mid waxaan arkayay xildhibaan lahaa
de wixii beentii way fakatay moogta xildhibaan lahaa madaxweyne xasan sheekh habeenkii meesha dagaalka ka dhacayay loos buu cunayay moogta see loos u cunaya nin xabad ku socoto haddii xabad ku socotay haddii xabad ku socotay teeda kale waxaa yaab leh ciidanka waxaa hogaaminayay ninka la yidhaahdo odawaa yaa hogaaminayay oo taliyaha ciidanka xoogga ahaa odawaa haddii uu soo weeraray madaxweyneyaasha oo sharafkoodii iyo noloshoodii uu meel uga dhacay sharafkoodii meel uga dhacay noloshoodii meel uga dhacay sidee xasan sheekh hadda mar dambe usoo ceshaday odawaa uu uga dhigtay taliyaha xoogga uga dhigtay ilan waa nin naftiisa khatar geliyey marka waxyaabahan kuu sheegaya siyaasadda xumaanteeda waay siyaasadda lama sheega been siyaasaddu been ma aha xasan sheekh iyo dad badan aan arkay siyaasadda waxay u haystaan trick khayaano dadka lagu wareeriyo si aad adiga waxaa rabta aad u gaarto marka de odawaa uu ahaa ninkii hawsha hogaaminayay odawaana shaqadiisu qabsanayay in xarumaha ka mid a dowladdu leedahay in aan la qabsan maleeshiya aysan qabsan oo aysan oran dowlad ma jirto marka saasay arrinta u dhacday laakiin magacii maa-ida qaadatay maa-ida ma ahayne waa daljirka dahsoon oo xarun dowladeeda waayahay arrintaas waa si wacan baad isugu xidhay dhacdooyin kale oo yararna way iska jirjireen laakiin waa ka gudbaynaa waxaanu aadanaa hadda maanta xaalka soomaaliya dastuur bay lahayd adiga waa lagugu doortay waana lagugu dhaariyey baarlamaankii madaxweynihii aad talada ku wareejisayna waa lagu doortay waa lagu dhaariyey dastuurkii waxaa la yidhi waa la bedelay 20 maalmood baa ka hadhay doorashadii lama hayo heshiis doorasho lama hayo lama yaqaano soomaaliya meesha ay aadayso adiga arrinta dareenkaaga marka u horeysa mas-uul qaran baad soo ahayd arrintaa ku aadan marka laga saaro rabitaankaaga iyo shakhsi iyo waxa adigu aad doonayso ama in dowladda wax lagu xumeeyo aan ahayn laakiinse loo dareen hadlo la Soomaali hadlo Soomaaliya halkay taagantay maanta wallahi niyo waxay taagan tahay crossroad khatar ah isgoys aad u adag iyo dalka taagan yahay runtiina dalkan wuxuu ku wada joogaa heshiis wuxuu ku wada joogaa maslaxad isu dhimrinayo iyo tanaasul madaxweyne iyo odayeen yaa lagu wada joogaa xoog laguma wada joogo caqlina laguma wada joogo waxaa lagu wada joogaa wax laisla ogol yahay oo heshiis lagu yahay oo la yihahdo consensus yaa lagu wada joogaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hadduusan consensus helin uusan wadar ogol helin wuxuu noqonayaa nin xoog ku jooga meesha dee xoogna waxay leedahay dhibaatadeeda leedahay xoog ma lagu joogi karaa dadka aan ku ogolayn aanan ku rabin dowlad goboleedyadii aan ku rabin ciidanka qaarkood aan ku rabin shacabkii in badan aan ku rabin xoog ma ku haysan kartaa waxaa hadda lagu ogol yahay xasan sheekh sharciyadda uu haysto yaa lagu ogol yahay waxaa lagu ogol yahay mandatekiiba ku jiraa weli 4 sano ahayd wax kasta uu sameeyo waxaa loogu dulqaadanaya waxa weeye because ninkan xoog kuma imaanin xasan sheekh xoog kuma imaanin military kuma imaanin wuxuu ku yimid rabitaan 220 xildhibaan mise 210 xildhibaan oo u aragta xasan sheekh inuu nin fiican yahay yuu ku yimid oo saas uga codeysay ma garatay hadda marka waxaa laga rabaa inuu meesha ku noqdo oo uu ka raadsaday dad ogol oo raba hadday 200 yihiin hadday 100 yihiin hadday 300 yihiin xildhibaan inuu meesha ku noqdo oo weydiisto cod si uu usii joogo rabitaankooda uu joogo uu weydiisto ka horna heshiiskii shaqadaas lagu gaari lahaa jadwalkaas lagu gaari lahaa yaa laga rabaa laakiin doorashaan waxaan samaysanayaa dastuur anigu aan leeyahay waxaan samaysanayaa doorasho qof iyo cod aniga aan leeyahay doorashaan xamar ka qabtay fiiri waa la og yahay xitaa haddii uu ahaan lahaa nin dee runtii wanaag ka shaqeynaya wuxuu qaban lahaa doorasho credible ah sida rabtaa ku timaado laisku halleyn karo doorashadii naftigiisii iyo shuruucdii uu samaystay iyo xeerarkii yuu violate gareeyey laakiin madaxweyne meel la odhan kari taas dad baa soo baxay doorashada safafka galay baa la arkayo dad isdiiwaan gelinaya la arkayay oo
shacabkii muqdisho abaabulan baa la arkayay xisbiyo albaaba garaacaya la arkayay miyaa la oran kartaa wax aqrinaysaa way dadaaleen arrinta horta see ku timid si sax ma ahayn macnaha xeerarka sidii loo ansixiyey hadday tahay xeerarka axsaabaha hadday tahay xeerarkii doorashooyinka hadday tahay sida guddigan doorashooyinka ku yimid waxaasoo dhan wax dee moogta adiga keligaa ma tartamayside dad baa kula tartamaya shuruucdii dad baa kula tartamaya dadka kula tartamaya waa inay raalli ka yihiin inay kula tartamaan meelay kula tartamaan inay joogaan marka waxaagii adaad ka soo qooshtay oo kambanigii shaqada qaban lahaa adaa keensaday guddigii adaa keensaday wixii dhan adaa keensaday iyada naftigeeda iyadoo keligaa aad keensatay xitaa waa inaa ilaalisid waxaa aad keensatay soo ma xeerarkii iyo shuruucdii ma ilaalin maalan sharciga axsaabaha ay ansixiyeen waxaa ku taallaa dowlad goboleedyadu waa inaad haysato 2,000 aad ka rajistarayso ama ka diiwaan geliso 5 maamul goboleed 3 maamul goboleed inaad ka 4 maamul goboleed iyo gobolka banaadir inaad ka diiwaan geliso waxa weeye adiga 4 rabta adiga ku jirtaa ma waxaa rabtaa Puntland 2,000 waa inaad ka haysato ma waqooyi bari waa rabtaa 2,000 inaad ka haysato ma galmudug baa rabtaa 2,000 inaad ka haysato koonfur galbeed miyaa rabtaa 2,000 jubbaland saasoo kale hirshabelle saasoo kale gobolka banaadir 2,000 marka 3 kala soo baxa iyo gobolka 4 kala soo baxa iyo hal gobolka banaadir shuruudaha waa 5 that means waa 5 dowlad goboleed inaad haysato oo gobolka banaadir ku jirto 2,000 waa shuruuday ka mid tahay in aad ka diiwaan geliso min 2,000 xafiisna ka furato fiiri waa 10,000 inaad registered ku diiwaan gashan yihiin aan ku weydiiyey xasan sheekh soo xisbul xaakim maaha soo xisbigii haystay awoodda maaha xagee ka registerayay xagee iska diiwaan geliyey aan xamar ka ahayn xitaa sharcigiisa isku dhaqmeen beenta ah faalsadiisii iyo xitaa ku dhaqmeen ma garatay marka waa inta ugu sahlan waay waxaa kuu soo haray doorashooyin ka soo qaad 100 jeer bay fureen haddana xireen waa fureen haddana ayaa dhaweyd waxay u fureen Cumar Cabdirashiid iyo prime ministerkii hore iyo Sharif Xasan gudoomiyihii hore baarlamaanka ama madaxweynihii hore ee koonfur galbeed iyay siyaasad ahaan ugu fureen labada xisbi inay iska diiwaan geliyaan waxaa la xiray 2 bilood ka hor sababta waxa waaye xasan sheekh baa wuxuu u yeerayaa wiilkiisa gudoomiyaha u ah u yeerayaa guddiga doorashooyinka waryaa fur buu leeyahay labadaas nin u fur haddaan u tago waa ii furaya adiga wala furaya hadda aniga haddaan iraahdo nabadii nool waa ka soo qayb galaya ii fur waa ii furaya marka hadee waa guri nin leeyahay moogta markuu rabo albaabka kaa furayo marna albaabka kaa xiranayo sooma tartan miyada ah taas marka hadda doorashada u dhacday fiir xamar muqdisho u dhacday anu waxaan ugu yeeraa doorashadaas xaashiyow waxaan ugu yeeraa doorashooyinka adduunka dhowr doorasho ka jirta mid waxa weeye waa mid dimuqraadiyadda oo adduunka laga isticmaalo inta badan ama ha saxsanaato ama ha khaldanaato qof cod baa la yiraahdaa kuwana waa managed elections meelo kale ka dhaca oo de waa la iska maamushaa oo xoog baa la socda mid baan adduunka kusoo darnay annaga Soomaali haddaan nahay doorasho dadban baa la yiraahdaa doorasho dadban annaga kaliya adduunka ka yaqaana hadda doorasho dadban way soo dhaaftay hadda xasan wuxuu keensaday doorasho la yiraahdo doorashada qasabka yaa la khasba dadka la khasbaya diiwaan gelintu waa khasab sidee doorashadu waa khasab diiwaan gelinta xamar markii laga diiwaan gelinayo dad dhahay war aniga magaaladan ma degani war aniga shaqaan u socdaa hadda ma ogoli war aniga maxaan ku raahdaa ma rabo inaan codeeyo dhowr qofna waa lagu dilay waa ku dhinteen si loo khasbayay kuwa badan waa lagu xiray baabuur socdaa leeyahay baabuurkan soo leexiya meesha doorashada taga ma garat oo yani oo passenger waa khasab dadku waa la khasbaya marka waxa weeye yaa diiwaan geliya doorashooyinka iyo shacabka yaa diiwaan geliya xisbiyada
anuu haddaan ka qayb galaya aan ku kalsoonahay doorashadaas inay ku dhammaanayso si saxa dee anaa qaadanaya feelalkayga oo diiwaan gashanaya ma garatay oo dadka diiwaan gashanaya xasan sheekh isagaa diiwaan gashaday waxoo dhan marka wixiisii isaga uu dee awal raacsanaana waa isdiiwaan geliyeen wixii kale aan raacsanayna waa soo khasbay doorashadii baa dhacday soo maha doorashadii markay dhacday waa la isku shubay ha ma garat seer isugu shubay waxaa la isku gadiyey waa la isku gadiyey caalam ya meesha markii la soo qaaday sanduuqyadii xaruntoodii maysan keenin sanduuqyadii sidii loo soo waday waxaa la geeyey guddoomiyaha gurigiisa 3 nin oo keliya ayaa access u lahaa sanduuqyadii beenta ahaa oo la lahaa waa la soo codayey 3 nin keliya magacyadooda ma raba inaan sheegee 3daas nin yaa falanqaysay sidii waxaan loo kala qaybin lahaa waxaa la yidhi Shariif Xasan waa beri haddaan siino meeqaan ugu shubnaa horta meeqa cod uu helay 70 cod uu helay haye waxaan ka ballan qaadnay inaan siino degmada waa beri meeqa codaan siinaa waayo 5,000 ha loogu shubo waa loogu shubay 5,000 isaga waa la waxaa la yidhi waa lagu shubay waa beri adaa lagu siiyey kuwa kale oo iyaguna meelaha ka keensadeen Cabdicasiis iyo waxyaabaa la siiyey idinkan xoogaa waa lagu shubay hadhow baa lagu kacay Shariif Xasan waxaa la yidhi Shariif Xasan waa beri lama siin karo xasan baa lagu kacay xasan sheekh baa lagu kacay xasan sheekh dad siyaasiyiin ah oo isku reer yihiin Shariif Xasan yaa ku kacay waxay ma siin kartid madaxweynuhu ha ma anaga hadda nagu soo saaraysaa Shariif Xasan waa laga gediyey haddana marka waxa lagu hayaa lagu yidhi waxba laguma hayaa la yidhi markii horena waa la faafiyey waxaa la yidhi 5,000 baa u codaysaa la yidhi intaas keliya maaha xisbiga xasan sheekh waa qayliyeen dad baa shaqeeyey howlwadeennaa shaqeeyey howlwadeennadii baa laga shubay because waxay rabaan councils inay meesha ka qaataan ma boob intaas la eg oo axmaqnimo ah miyaa laga qayb geli karaa marka waxaan ku soo gabagabeeyey xasan sheekh doorasho ma rabo hadduu doorasho rabo wuu yaqaanaa cidda la tartamaysa si kasta noqoto madaxweyne waa la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la doortay mar labaad baa Soomaalidu waxay siisay fursad baa la siiyay ma kaasha la siiyay laakiin marka laga reebo tiimka madaxweynaha kaliya ayagu ku hareeraysan dadka kale waxay u arkaan inuu wixii uu madaxweynaha hore sameeyay wax ka daran uu sameeyay adigu marka hadeerta sharax baa tahay sida iska cadahay maxaad adiguna markaa noqonaysaa xaqiiqatan dee horta haddii ninkaas odayga ah madaxweynaha mar labaad la doortay oo fursad ilaahay siiyey waxay ahayd inuu ka faa'iideysto oo wixii ka halaabay uu ku saxo wixii uu wanaag ahaa uu sameeyeyna uu xoojiyo yay ahayd marka haddii isagu hadda wax badan ka halaabeen oo dad badan aaminsan yihiin inuu hadda kasii khariban yahay oo wax badan oo aad u halaysan oo hadda sameeyey su-aasha waxa weeye farmaajo maxaa laga fili karaa haddii mar labaad fursad la siiyo dee farmaajo waxaa laga fili karaa waxa weeye wixii aniga aan sameeyey oo wanaagsanaana inaan xoojiyo wixii khalad ahaa oo dhacayna aan saxo aniga iyo xasan sheekh isku falsafad ma nihin hal wax oo aan isaga mid nahay ma jirto we don't have anything in common wax aan isaga mid nahay malaha isku aragti ma nihin dowlad kama nihin isku background oo ma nihin maxaan ku raahdaa isku aqoon ma nihin isku garasho ma nihin isku fakar ma nihin wax kasta waa ku kala duwannahay xasan sheekh waxaan kaliya aan isaga mid nahay 2 nin oo Soomaali aan nahay oo kaliya laakiin wax kasta oo kale waa ku kala duwannahay anigu markaa runtii waxaan dowladnimada ka fahamsanahay iyo khibradda aan leeyahay waxa weeye inaan ka shaqeeyo sidii hore aan uga shaqeynayay amaanada iyo cadaaladda labadaasna Soomaali u baahanta xaqiiqatan labadaasna waxaa loo baahan in la xoojiyo labadaas yaan runtii aan rabaa inaan adkeeyo aan xoojiyo tan labaadna runtii dhalinyarada oo hadda majority-ga dalka ah 80%
in la siiyo programyo dowladdu waxay qabanayso centred u ah dhalinyarada. maxaan ku idhaahdaa dhaqaalaha la kobciyo oo la hormariyo. amniga meesha uu taagan yahay meel aan wanaagsanayn weeye hadda xaqiiqatan. in amniga aanu xoojino oo meeshii anagu aan uga tagnay kolleyba ugu imaan mayna haddii ay dhacdo fursaddaas aan hele ama qof alla qofkii guuleysta meel ka hooseyso iyo ugu tegayaaye. laakiin dee aan ka shaqeeyo xoojinteeda iyo horumarinteeda arrimaha amniga. wadaniyadda waa muhiim. dadka Soomaaliyeed sidii loo walaalin lahaa muwaadiniin wadaniyiin ah dalkooda u naxaya iyaga isu naxaya loo walaalin lahaa in laga shaqeeyo. marka runtii waxaan hayaa dee khibrad. xasan sheekhna khibrad buu hayay markii hore uu ka helay tii hore, laakiin sidii saxa uma isticmaalin. marka wixii khalad ahaa iga dhacay dee aan saxo oo aan ku noqon. wixii wanaagga ahaa oo aan ka shaqeyna aan xoojiyo. waxaan aaminsanahay dalkaasi inuu u baahan yahay saan horey hadalka kugu bilaabay 2 arrimood iyada naftigeeda. khibrad shaqo yaqaana oo shaqada yaqaana hadday tahay leadership hogaamin iyo hadday tahay maamul. iyo 2 inuu yahay qofkaas qof niyad wanaagsan oo intentionally qof wanaagsan oo wax wanaagsan rabo inuu ka shaqeeyo raba. oo maxaa ugu horeeya dadka Soomaaliya inuu walaalayo. qabyaaladoo kale waxaa dib loo dhigay weeye ay dadka isugu mid yihiin. marka aniga haddii aan fursadda u helay aan heli lahaa dalkan horey yaan u dhigi lahaa xaqiiqatan. hadda haddii aan helo fursaddaasna wixii shalay laga filayo unbaa laga filaya. maxaa yeele qofku waa hal qof. qofku 2 jeer ilaahay ma abuurin. xasan sheekh termkiisii hore unbuu hadda yahay. wax ka duwan ma jiro. barakacintu waa barakacintii. musuqmaasuq waa musuqmaasuqii. xaaladaha duruufaha jira dowlad xumada waa dowlad xumadii. maalan waxaan kuu sheegayaa fiiri waxay gaareen heer la isugu faano qof walba inuu qaraabadiisa qorto. ma garatay? ha yaa looga dayanaya. waxaa looga dayanaya madaxdaa looga dayanaya. ha aawo dadkii kale Soomaaliyeed oo ku aaminay oo aad u shaqeynaysay oo ku yiri dee adigaa ku dooranay oo oday noo ah oo noo dhexeeya oo maxaan ku raahdaa nolosheena wax ka bedel. aawo dadkii hadduu nin walba usoo baxo caruurtiisa keliya iyo reerkiisa keliya inuu usoo baxo keliya ummadda Soomaaliya yaa u maqan. marka xaqiiqatan xasan sheekh waxba kama doona tii hore. dadka iloobay tii hore. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo xaqiiqatan barnaamijka dhulmar ee Horfadhi Media siiyey waraysi iyo waliba barnaamijyo badan uu kaga hadlay xaqiiqatan xaaladihii kala duwanaa ee waddanka Soomaaliya taariikhdiisa iyo waliba waxqabadkiisa dambe iyo kuwiisa soo socday iyo kuwiisa horeba. madaxweyne aad iyo aad kaga macalinaya waqtigaaga. aad iyo aad u mahadsantahay. thank you so much.